suu wuxuu dhacay haddana yar bixiyo meeshan gobolka Qorraxay waxaa jirtay sagaalka bisha labaad 2013 waxaa jirtay banaanbax sharci darro ka dhacay gobolka xisbiyadu kulay sadowtiin maadaama ay iska jiraan waxaa jiray banaanbax kolkii 12 aduu casarkii 10kii 5tii iyo barkii aan ka war helay banaanbax inuu magaalada ka jiro oo ay wadaan ururka Noolef markii waan soo tagnay marka waxaan nimid nimankii baan nimid mas'uuliyiinta ka ahaa waan sheegnay banaanbax waa sharci darro maadaama uu sharci darro yahay dawladda iyo fasaxadu haysataan away aad baan u doodnay banaanbax sidiisa waa sharci darro inta xukuumadda u tagtaan wax fasax idinkoo wata la yimaada annaguna idin soo dhaweyno amniga iyo nabadgelyada waddankan ilaalin anagu hay'ad nabadgelyo nahay cid kastoo ma taqaanaa nidaam sax ah ku banaanbaxaysa oo waddo sharci haysa anagu idin ilaalinayna idin soo dhaweyno tii ma jirto cid aan uga fasax qaadayna ma jiro halkii waan isku afgaran weynay banaanbax waa sharci darro COVID-19 baa jira isaguna ma taqaanaa wuu jira oo dadka Soomaaliya hadda halkaana wixii ka jiray halkan banaanbaxa sharci darrada ku socotaan waa sharci darro walaalow iska daaya ma jirto kun haday ku dhimanayso wadayna jawaabtii waxay ka bixeen 100 haday ku dhimanayso iyo haday ku dhimanayso waan wadayna marhaantii dib aan sugu noqonay xaaladii ciidamaha nabadgelyada dhan hadana dib baan shir u galay war maxaa sameynaa adu aroortii ciidanka iyo wixii oo taxadar darro ay dhacay xagana ma jiro anagu ma taxadar sameynay maahan iyagu laakiin qorshuhu waxay ku tala galeen inuu meesha dil ka dhaco banaanbax sharci darro markii lagu hortagay waad garan kartaa waxa mid qanay foodlada ka dhacaysa waddanka kulku sharci darro yahay taxadar baanu sameynay taxadarkii aan sameynay kolkaan arnay jawgi inay nimankan ay wixii inuusan hay'adaha nabadgelyo waxaan qorshaha qaadanay inuusan meesha wax ka dhicin oo wax dil ka dhicin gaadiidkoodu marka dhibaatada u yar waxay kaylaagii boondada laga galo ma taqaanay qabdaar kaylaagi way jireen askari booliis halkaas ku sugtay ma taqaanay xarigii baa ku dhacay oo maamulka magaalada councilka askari booliis oo ahaa gaari ma baalkan maxaa la baal gaarigan yar wixiga isla gaari bay ku dhufteen gaariga xafiiska caafimaadka ku dhufteen halkii salaadii ciid magaalada lagu tukanay oo galeen xoog bay ku jabseen iyadana inta ciidanku uu taagan yahay waxaan sameynay inaan xoogii ay sameynayeen iyagu kolkaan arnay sharci darrada meesha ka socota inuusan wax dhibaato meesha ka dhicin anagu ku dadaalay tiina alxamdulillah waan ku guulaysanay inuusan wax ka dhicin kadib kolkii intii dhacday waxaan sameynay procedure sharciga inaan maro ciidan ma taqaanay dhibaatada sameynaysa fasax la'aanta tan sameynaysa maxkamadan waan ka codsanay xubnaanu ka codsanay dhibka wada iyo mas'uuliyiintooda xubnihii waarantii baan soo qaadanay maxkamaddu noo ogolaatay waan soo qabanay waan keenay kadibna heer deegaan keenay gobolka Qorraxay dhibaatada ka dhacday intaas ay ahayd nimanka geystana saas ay wax ugu jiray eedeysanayaashan waxaa laga soo gudbiyay gobolka Qorraxay 3 eedeysanay ahaayeen 3dii eedeysanayd markii la soo gudbiyay ee la keenay qaybta baarista ee heer deegaan procedure sharciga ahaa sidoo dhigay waxaan u gudbinay gisa qadara xabs xalaaleen waxa laga soo qaaday maxkamadda sare ee gobolka Faafan first koodina wuxuu ku socdaa procedure sharciga ahaa una dhamaado hadda waa gabagabo waxaana maxaa la yiraahdaa uu hadda galahaya hadii Ilaahay yiraahdo procedure-kiisa maadaama soo dhamaaday xeer ilaalinta oo hadda uu dhamaaday totally procedure ahaan iyaga oo ku eedeysan banaanbax sharci darro ah ayaa maxaa la yiraahdaa gobolka laga keenay marka uu dhamaaday feelkoodii eedeysanayaashan baytisabkoodii iyo maxaa la yiraahdaa dadkii ehelkooda ahana way la kulmaan oo waa caadi oo waa loo ogol yahay way u tagaan cuntada way u geeyaan way la kulmaan way booqdaan oo booqashadu u fasaxan tahay marka eedeysanayaashan guud ahaan xaaladooda sidaas weeyaan